soo dhawaad saaxiibayaal saa ogtihiin ba Pocket-ka waxaa lagu sameeyay update waxaa lagu soo daray wax loo yaqaano maxaa la dhahay al trading ayaa loo yaqaanaa waa bot ka riskigiisa aad buu u yar yahay waxaa laga yaabaa Pocket-ka badanaa riski inuu soo galay laakiin maanta waxaan rabaa inaan lacag soo dhigano adiga ugu yaraan $10 inaan soo dhigno aan ku tuso insha Allah sidoo kale waan tijaabinaynaa waxa way lacag yar ku tijaabin doonaa insha Allah Pocket-kan dad badan ayaa lacag ka sameeyo waxay u baahan tahay sharaxaad gooni ah iyo qaab lacag loo sameeyo waxa way waxaa jiro candle la akhriyo hadal mar rabo inaan kugu daariyo marka waxaan rabaa lacagta inaan ku tuso qaabka u soo dhigi lahaa iyo wadooyinka mar lahaa insha Allah waan ka soo bixi doonaa manaanka imaan doonaa manaanka marka imaado qaybtan waxaa u imaan doonaa qaybtan hoose oo ujeedaan oo idra ay ku qoran tahay idra hadaadan aqoonin linkiga hoos ayaan ku dhigay insha Allah sidoo kale Pocket-kana waxa Pocket-ka saxda ah linkigiisa hoos ayaan ku dhigi doonaa insha Allah maxaa sameynaysaa markaas aan soo gashid meelaha koonada aad kaga soo dirsan kartid waa qaybtan ujeedaan ad ayaa taabanaysaa ad markaa taabato mid ka yarta ku soo dirsanaysaa ani waa kana ugu jiraan soo ujeedaan okay markaas aad sameysid waxaad tagaysaa qaybtan sare kore aadin doontaa waxa la EVC-ga maadaama EVC ka soo bixinaysa lacagta hoosna waxaad dooran doontaa perfect-ga oo hore u soo gelisay yani wuxuu ku leeyahay perfect markaa ku soo dirsanayso kow aad soo dhigaysid wuxuu ku weydiinayaa ID ku weydiiyaa ID-ga oo macnaha akoonkaaga waa gelinaysaa ka bacdi save ayaa dhahaysaa ka bacdi meesha ku soo galaa okay hadda kadib waa ka dirsan kartaa okay hadda lacagta aan gelin doonaa waa imisa marka lacagta aan gelin doono inta ku qori doonaa waxa way $11 aan gelin doonaa soo jidaan waxa noo soo gaari doontaa waa $10 iyo 69 senti ayaa noo soo gaari doonto waxaan dhihi doonaa claim ayaan dhihi doonaa qaybtan hoose u jidaan claim ay ku qoran tahay taaban doontaa confirm marka aad taabato waxyar dulqaad muuji confirm aad taawahe wuxuu ku leeyahay fadlan geli biinkaaga yani biin dhammaa biin xitaa uma baahno wuxuu ku leeyahay ma aqbashay haa iyo maya ani waxaa taaban doonaa haa oo wana aad taaban doonaa haa marka asaas u taabto wuxuu leeyahay biinkaaga geli yani si lacagta loo diro waa inaad biinkaaga gelisaa biinkayga gelin doonaa insha Allah waan ka qarin doonaa okay biinka gelin doonaa insha Allah okay biinka markaas u geliyo lacagta si toos ay u baxday soo jidaan lacagti way bixiyay soo jidaan akoontiga okay waa kaas soo jidaan lacagti way baxday provide your account taaya okay provide and doona soo jidaan okay hadda lacagti si toos ay u baxday pending ay ku jirtaa wax yar ka bacdi ayaa soo gaari doontaa insha Allah lacagti markay soo gaarto waxa ka fiiri doona waxa tahay perfect-ga waxa ugu weyn waxa way perfect-ga badanaa waxa dadka perfect isticmaalaan ana perfect isticmaalaa marka aan ku tirsanayo Pocket option iyo waxyaabahaas iyo aaladaha kale oo ku shaqeeya perfect-ga waxaan booqan doonaa ka bixi doonaa waxaan aadi doonaa qaybta perfect money-ga gali doonaa insha Allah qaybta perfect-ga ayaan gali doonaa insha Allah marka saaxiib dulqaad muuji waxaan dhihi doonaa 4 hal kale 4 hal ka bacdi log ina dhihi doonaa wuxuu leeyahay gili gmail-ka waxaan ku soo diri doonaa gmail-ka ugu furta waxaan ku soo diri doonaa code gili okay wax yar dulqaado gmail-ka aadi doonaa insha Allah okay hadda ugu dambeyn code-kii waan soo qaaday waxaan ku dhigi doonaa basti code-ka waa ku geliyay basti ku dhahay soo jidaan lacagtii waa inay soo gaartay oo $10 iyo 68 waa ka saacadii soo gaartay waa kaasa waa adiga waqtiga soo gaartay waa kan soo jidaan waa 10 bisha 7 2024 saacadana waqtigaas ku beegan tahay hadda waxaan rabnaa Pocket option inaan soo dhigano sidee ku soo dhigano marka waxaan booqan doonaa Pocket option okay Pocket option ayaa booqan doonaa Pocket option marka aan booqano qaybtan ujeedaan ayaan taaban doonaa qaybta deposit ayaa taaban doontaa markaas aan u taabato aniga waxaan taabsan doonaa perfect money waxaan taaban doonaa perfect money markaas aan u taabano perfect waxaan gelinaynaa 10 soo jidaan maya qaybta si caadi u dhigan doonaa insha Allah okay waxaan sameyn doonaa qaybtan deposit-ka ah ayaa taaban doontaa qaybtan deposit-ka marka aad taabato waxaa taaban doontaa qaybtan ujeedaan oo perfect money ay ku qoran tahay qaybta markaas aan u taabato
waxaa dooran doontaa waxay tahay 10 ayaa dooran doontaa ama lacagta aad soo dhiganaysa ayaa dooran doontaa insha Allah. So maxaa dhihi doontaa marka continue ayaa dhihi doontaa, continue ayaa dhihi doontaa. Okay, continue markaa dhahdo make payment ayaa dhihi doontaa, make payment. Make payment markaa dhahdo inta waxaa gelin doontaa ID aad taqaana. ID markii ku afurnayso waxaa lagu siin doonaa ID. haddaa ID aqooni saaxiib waxa weeye wax kama taqaani saaxiib, waa ka soo baxa hadda ID-gay wuxuu u yaalaa manaanka. So ID-gayga manaanka ayuu u yaalaa, inta kasoo qaadi doonaa qaybtan horumar save dhahay. oo xadaaratin waxaa ka raadi kartaa Gmail-ka waa markaa furnaysid kan ugu horeeya kuu soo diray ID kaas Allah. ID waxa la kan ugu horeeya ku soo diraan ID ku qoranta kaas Allah. Okay, waxaan gelin doonaa password-ka, waan ka qarin doonaa password-ka soo jeedaan. Okay, password-ka waan gelshay, hadda waxaan gelin doonaa code-ka yariiska oo weydiinayo xaqiijinta inaan robot ahay inaan binaadan ahay in kale. So aan gelinaya soo jeedaan, ka bacdi waxaan dhihi doonaa make ayaan dhihi doonaa. So waa uu soo diiday soo jeedaan, oo ku celi doonaa waxaan qaladnay saaxiib, qalad yar aan sameeyno. Okay, waxaan rabnaa hadda code-ka yariiska gelin doonaa. hadda password-ka waan geliyay. So wax yar markaa haddaa qaladid oo ku soo celina. Okay, ha qaldin fadlan iska sax. Okay, iska sax. marka hadda waxaan dhihi doonaa make payment. So hadda waa aqbalay, kali wuxuu u rabaa xaqiijin inaan Gmail ka tago. code-ka hadda oo kale aan soo qaado, code-ka ku soo diraa, code-ka waa inaan soo qaadaa. hadda code-ka soo qaadi doonaa insha Allah. wax yar iyo saaxiib ugu dambeyn code-ki waan soo qaaday. waxaan rabaa qaybtan inaan dhigo on paste aan ku dhaho. So paste ku dhihi doonaa, ka bacdina waxaan ku dhihi doonaa continue. saas ayaa lacagtii ku soo dhigay $10 soo jitaan. waa ka soo jitaan waxaa ka sad waan sameeyay, waxaa laga jirtay 19 laga jirtay soo jitaan. So waan soo dhigay, hadda waxaan sameeyay make deposit ayaan sameeyay oo $10 ayaan soo dhigtay soo jitaan. marka waxaan rabaa inaan isla tijaabino qaybtan al trading-ka ah ee la dhahay riskigiisa. yani waxaa la dhahay riski badanaa ma laha, dadkii ku khasaari jiray kan ayaa loo keenaa la. marka waxaan rabnaa inaan maanta tijaabino asxaabta tusiyo insha Allah ila arka marka. Okay, hadda soo jitaan lacag nagu jirto waa $10. hadda saddex waa ka dhigi karaa, laakiin si waxaan rabaa $1 inaan ku tijaabino. waxaan rabaa $1 13 xitaa waa ku tijaabi kartaa. waa bedelin baashi xitaa 13 xitaa waa ka dhigani. So laakiin waxaan rabnaa $1 inaan ku tijaabino saaxiib oo aan ku tuso insha Allah. So waxaan gali doonaa qaybtan hoose aan isla aragno insha Allah. qaybtan hoose al trading ay ku qoran tahay, ka bacdi waxaan dhihi doonaa al trading soo jitaan. Okay, waxaan dhihi doonaa open trade aan dhihi doonaa. open trade markaa dhaho soo jitaan. hadda sida ayuu sameeyay, waa ka soo jitaan. ma hubo inay saan tahay in kale, laakiin si waa fiiri doonaa in ay faa'iido tahay in kale ama inuu khasaayis yar yahay in kale. So waan arki doonaa insha Allah. Okay, hadda soo jitaan waa ku faa'iiday soo jitaan. waxa way saaxiib soo jitaan faa'iidadiisa kastoo badan, waxa way khasaarihiis aad u yar tahay. hadda waxaan dhihi karnaa tusaale, hadda maadaama intaas aan helnay waxaan dhihaynaa 2 oo kale tusaale. waan tijaabin doonaa insha Allah. Okay, wixii oo naga soo gaara arki doonaa insha. Okay, open aan dhihi doonaa. open markaa dhaho soo jitaan. hadda sidaan ayuu sameeyay, waan isla arki doonaa insha Allah inay faa'iido tahay iyo in kale saaxiib. laakiin se waxaan maleyn doonaa waan ku faa'iidnay soo jitaan saaxiib. waa kaasa. Okay, dadkii ku khasaari jiray kan ayaa loo keenay, ka faa'iid saaxiib. waxaa samaysataa jadwal fiican, jadwalka oo ah ama maalintiina sameysay $2 jadwal ay ka dhigatid ama $3 aad waxa ku qanacdid oo faa'iido ku ah, yani ku tasho inaa maalin kasta aad sameysid. Okay, muuqaalkan intaas ayuu ku eg yahay. waxaan rabaa kaliya inaan waxaan ku tuso insha Allah waxayna faa'iido yihiin. waxa weeye waa bot loogu talagalay in qofka aan investmentiga ah lacag fiican oo kaga sameeyo insha Allah. waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad ku faa'iideen. aad iyo aad u mahadsantiin. muuqaalkan like gareeya saaxiib yaalo.